بروسيجر كم حل لو باهي هي doorashadu si noogu dhacdo kow doorashadu waa astaanta dimuqraadiyadda waxayna inoo muhiim ah inaynu fahanno doorashadu inay tahay udub dhaxaad nidaamka dimuqraadiyadda ee ururka ardayda waxa tallaabo muhiim ah oo inaga caawinaysa inaynu raadino hogaamiyaal tayo leh inaynu helno oo ardayda jaamacadda Camuuda waa qodobka labaad waa hufnaan iyo cadaalad inay ardaydana si cadaalad ah ugu codeysaan oo qofna qofka kale aan kala jeclaysan ardayga laga guuleystayna qofka kale u dhaaho hambaliyo ka guuleystayna isagana inaanu hambaliyo waa qodobka saddexaad waa wada jir iyo wada shaqayn inaynu si wada jir uga shaqeyno doorashadaasi si ay cadaalad ugu dhacdo oo in maqaarto uga ahaano qaabka loo dooranayo qof walba halkaas uu soo istaagay warqadaan u dhiibi magaciisa saddexan buu ku qoran hadduu group A dooran group A qaadanayna group A u saxiixi laakiin magaciisa saddexan buu ku qorayaa hadduu group B dooranayna magaciisa saddexan buu ku qorayaa labadaas si falaadho warqadu way sharaxan tahay waxay kala leedahay liinkaas uma faraacsan labada groupka iyo groupka magacaaga halka baad ku qoraysaa أولاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan marka hore salaamayaa bahda jaamacadda ugu horeeyo Rosoftiriye ardayda sharafta leh ka soo qayb gashay marsan xalfadan ku dooranayno gudoomiyaha hogaamin doonta sanadka soo socda Student Unionka magacaygu waa Muuse Cismaan Maxamuud project senior kulliyadda Business and Economic waxaan u taaganahay ama soo sharaxay inaan noqdo gudoomiyaha guud ee midowga ardayda jaamacadda Camuud kaasoo haddii ay doorataan aan ku shaqayn doono si cadaalad ah si karti ku jirto waxaan isku xiri doonaa aan noqon doonaa bridge isku xidha maamulka jaamacadda iyo ardayda waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ardayda sharafta leh oo codkooda aan ka codsanayaa inay codkooda igu deeqaan anigoo ka socda group A magacayguna yahay Muuse Cismaan Maxamuud. Assalaamu calaykum magacaygu waa Axmed Khaliif Aadan ka socda faculty ICT gaar ahaan departmentiga software engineering waxaan ahay musharax u taagan xilka gudoomiyenimada jaamacadda Student Unionka mudanayaal iyo marwooyin waxaan mar labaad si sharaf leh inaga codsanayaa inaad nagu taageertaan codkiina si aan u sameeyno matalaad dhab ah waxaan ballan qaadayaa inaan ku qanci doono natiijo waliba oo ay ka dhalato doorashada waa mahadsantiin waad ku mahadsantahay sida sharafta leh ee codkiina u dhiibateen ciddii markaasi sanadka hogaamin lahaa gudoomiyaha u noqon lahayd iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo xogayaha Student Unionka Muuse Cismaan Maxamed oo chairman ah Cabdiraxmaan Jaamac Xirsi oo vice chairman ah iyo Hindo oo secretary ayaa eedaha جروبينا وأحمد خليفة آدم أو قدوميها أما شيرمانها يحيى إندونور عمر يحيى فايز جيرمانها إيو قبضة أو حكمة أو يدنا سكرتريا لبدي جروب مركي إنه هالكن أجنو مدول بين تاوهلي
group A waxay heleen 14 cod group B na waxay heleen 8 cod tirada codka dhiibatayna waxa weeyaan 22 arday marka waxaan ku hambalyeynaa qolada ku guuleysatay ee group A ah ee 14 cod heshay inay sanadkan hogaaminayaan ardayda loo socabto waxaan halkan uga mahadcelinayaa guddigii doorashada Student Unionka sidoo kale halkan waxaa uga mahadcelinayaa kuna bogaadinayaa ardaydii ku guuleysatay guddoonka waxbarashada insha Allah waad guuleysateen dhammaan jaamacadina waa guuleysatay waxaan rajaynayaa inaan wada shaqeyno aad baan u mahadsantihiin doorashadu way noo soo dhamaatay dhammaantiin intay codaysay iyo intaan codaynba maanta guddoomiyaanu hay si cadaalad aan ugu shaqayn doonaa iyo sidii ay jecel yihiin ay codkooda nagu siiyeen hadalka waxba badin maayo insha Allah hadal yar iyo hawl badan baa inoo balana saas ay inoo balana waxa inoo guula inaan helo guddoomiye cusub oo sanadkan inoo hagi doona qodobka labaad waxaynu helnay hogaamintii iyo mas'uuliyaddii aan rabnay inay jaamacadda Camuud way hesho guddoomiyihii ururka ardayda ama midowga ardayda sanadkan hogaamin doona guddoomiyaha magaciisu yahay Muuse Cusmaan Maxamed iyo Cabdiraxmaan Jaamac Xilso ah guddoomiye ku xigeen iyo Hinda Idris Yaasiin oo iyaduna ah secretary waan ugu hambalyeynaa haddii aan nahay bahda jaamacadda Camuud waxa kaloo qodobka saddexaad aan u sheegi doonaa groupka guuleystay inaan jaamacadda si wadajir ah uga shaqeyno inaan horumarka jaamacadda aan ka qayb qaadano mahadcelin iyo bogaadin ugu dambeyn waxaan ugu mahadcelinayaa dhammaan musharaxiintii kuwii guuleystay iyo kuwii laga guuleystayba waxaan leeyahay dhammaantoodba waxaan leeyahay hambalyo insha Allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh